السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا وناسن داوديال meel kasta joogtaan iyo si kasto muuqaalka nagu idin soo gaarayo soo dhawaada oo runtii ku soo biira mar kale saaxiibadan waxaan rabaa inaan marka hore u mahad celiyo dhammaan saaxiibada channelkan ku jira ee runtii aadka qaaliga iyo qiimaha u leh ee muuqaalada aan soo dhigno share gareeya comment ka bixiya la gareeya kala kiciya saaxiibada maalin walba cusub ee nagu soo biira iyaguna oo mahad celinaa ee channelka subscribe yiraahda gambalka riixda si ay markaa muuqaaladanada ula socdaan aad baad u mahadsan saaxiibayaal meel kasta adduunyada ka joogtaan dadka jooga runtii Mareykanka iyaguna sida gooniga barnaamijkii u daawada aad u mahad celinaya Soomaalida xamar joogtay iyo gobolada dalkan u mahad celinaya inta kale adduunyada kala jooga iyaguna si gooni uga mahad celinaya markaan Mareykan iyo Soomaaliya aan soo qaatay dadka ku nool iyagu si gooni ila soo xariireen mobilkii gacanta iyo xitaa soo wacaan iyagoo runtii iga wareysta aragtiyada iyo waxyaabaha soo bandhigo YouTube-ka waxaan galnay sanada 2020 2019 ka soo dhamaanay 2020 ayaan hadda mareynaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ugu yaabka badnaa iyo waxyaabihii cajiibka ahaa ee anigu intaan galay aan ku guuleystay iyo waxyaabihii Soomaalida aan ka bartay sanadii la soo dhaafaan raba inaan soo bandhigo waxaan ku bilaabi doonaa dadkii ugu wanaagsanaa ee aan bartay dadkii ugu wanaagsanaa ee aan arkay wixii ugu yaabka badnaa ee aan runtii markaa maxaa la yiraahdaa anigu aan intaan 2019 sanadkii aan soo arkay dhibaatooyinka ugu badnaa qaarkood aan goobjoog u ahaa oo dad badan runtii Soomaaliya dhibaatooyin ku soo gaartay ayaan soo koobaya qof waliba oo muuqaalkan daawada oo arka waxaan ka dalbanayaa si naxariis ku jirto muuqaalada inuu u share gareeyo si qamshaqamshada halkan ku jirta aan maxaa la yiraahdaa soo gaarto baash inaad daawato oo kaliya oo aad click siiso ayaa aniga faa'iidiya marka taas ayaga xasdin adigoo mahadsan in waxyaabo igu la yaab ka badnaa sanadkan bilaabaya waxaan rabaa inaan ka bilaabo gabar YouTuber hadda ah oo runtii anigu aad aan runtii dadka dhiirigelinaya aan kamid ahay oo soo qaaday hees ama heeso sanadii 2019 iyadoo mooto saaran iyo wax kale hees soo qaaday kadibna hees igu la yaab ka badnaa aniga aad aan ula yaabo inaan ku qoslo caadiysta xasatob loo soo qaaday ee soo qaaday fartuun balbalaarka waxyaabaha aan xasuusto kale waxa kamid ah wiil nagis ku heesay oo magaalada Muqdisho hees soo qaaday isagoo ka Soomaa wata dameerna shuminaya haan meel haan ahna dhex galay waxyaabo igu la yaab ka badnaa sanadkeed markaan taas xoogaa analyze gareeyay waxa ii soo baxday in wiilku uu raadinayo magac kuwa ka duubanay ay raadinayeen views markii la isku darana ay ahayd fool xun oo runtii dhacay oo wiil Soomaaliyeed qayb uu ka ahaa wiil Soomaaliyeed uu duubayay YouTube kala soo dhigana wiil Soomaaliyeed uu lahaa marka waxay ahayd wax aad aan ula yaabay waliba anigu isweydiiyay war heer wiilku ma garan waayay inuu muuqaal ka duwan duubo maadaama kan nagis uu wato kan uu dameer shumanayo kan meel xoola uu iska dhex joogo kan muuqaalka duubay naftigiisa uu ka celin asaga naftigiisa uu san door bidin inuu waxaan iska dhaafo dhar isagoo dhaqaya shaati islaameed suu sheegay isagoo dhaqaya waxaas marka meel muuqaal lagu duubay waxay ugu yaab ka badnaahay sanadkan waxyaabii igu la yaab ka badnaa waxay ahayd oo runtii aniga aad ii soo jiitay waxa kamid ahaa ula yaabay haddana bandhigii ay sameeyeen ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ciyaaraysa markii ay tageen Uganda iyo runtii markii Djibouti ay ku ciyaarayeen bandhig caadi ahayn ay sameeyeen sanadkan guulo la yaab la soo gaaray waxyaabihii aan anigu dameer ahaan ikiciyay oo aan dagaal u galay sanadkan dhowr jeer aan dagaal galay markii kuwaad dagaalan galo wuxuu ahaa waxaan raacay maalin mooto dhugley waxaan marayay wadada maxaa la yiraahdaa shaqaalaha mootadii aan saaraa ayaa shil gashay waxay ku dhacday mooto kale mootadii aan ku dhacnay ilaa mootada aan saaraa qaladka iska lahayd mootadii ay ku dhacday way gadoontay gabdhaha saaraa waxba xoogaa gaargaaray oo runtii dhaawacyo ah ilaahay qadartii wiilkii mootada aan saaraa ugu waday wuxuu sameeyay inuu wuxuu isku diino cararo oo mootada sheelreeyo markuu wax yar ka fogaaday meesha shilku ku dhacay ayaan dareemay inuu isagu cararo xasdaa baakin uu galaan isla anigu laakiin uu cararaan dareemay kadibna isagii mootada wadaan qoorsigaaro ku soo qabtay wiilkii markaan qoorsigaarada ku qabtin eelagu ahaa mootada ustaajiye kadibna waxa ay qabanaysaa oo dhaqa qoorsa u qabanay waxaan iri dadkii aad soo dishay naga dambeeyay istaag hooyo aflagaaday ninku kadibna meesha dagaal ka bilowday gacan ku dhuftay waa degnay dhulka isku fiirnay markii dadkii soo baxa waana kala qabtay maxaa iska rabtaan la dhahay wilina ma noo imaan wiilkii mootada gadoonti saaraa oo ka booday oo darawalka ahaa iyo gabadhii dhaawacmay inta ma soo gaarin wili
dadkuna way ku yoonsan yihiin annagana feerkeennii la kala qabtay wuxuu yidhi maxaad igula dagaashay maxaa kula dagaashay wiilkaan waxaan dhahay mootadan saaran kiristaan ahaa shil uu galay mootadii shilka mootada uu ku dhuftay cunugu aswaalaya mootada uu ku dhuftay way gadoontay dad wax ku soo gaaray isna uu soo cararay dadka wax gaaray matiida maxaa ka qosay Allah gabdho Soomaaliyeed dhibaataysan ku anigu marka ma ord waa inuu garbaxaan ku ma ordaay fayna ninka anoo kuleetiga haysta wali aan laga fujin oo isku dhaganahay ayaa wiilkii mootadii gadoontay iska lahaa oo ka booday ayaa yimid oo asna ninka kuleetiga qabtay kadib boolis ayaa yimid kadib labadii mooto waa la waday anigu waa raacay kama harin gabdhii dhaawaca isbitaalan geynay meelay ka diirmeen farmasiya xoogaa lagu habeeyey gabdhii telefoonaan ka qornay waxaan dhiri bal hore u socda wiil la dhashay ay gabdhaha noo yimid gabdhii waa la fasaxay wiilkaana la joogo markaas waxaan geynay saldhigga wiilkii mootada lahaa waa la xiray waxaan ku yiri ehelkaaga waco ehelkiisu wacday ehelkiisa aabihiisa yimid aabihiisaan ku yiri oday wuxuu noqday runtii aan aqaano waxaan ku yiri anaa ku damaynanaya waxaa samaysaa maxay toole reerkii gabdhaha dhaacmay aan u tagno ninka mootada iskala waa kana isla shirka la geliyay bal isaguna la tacaala ninka mootada iskala markii la qiimay wixii 500 noqdeen 500 anagoo dhowr qof isku qornay reerkiina faataxadii yiraahdeen noo mara gabdhaha anaga wax dhibaato hadda ma gaarin ilaahina naga ma gaarsiiyo meelo yar ka diirmeen bal faataxada noo mara dhacdadii igula yaabka badneed oo anoo mooto saaran shil aan galay 2019 ay ahayd oo runtii markaan soo xasuusto shaqaalaha markaan maray waan soo xasuustaa kaliya waa iska qoslaa marka qaar waxa ila noqota wax ajiib runtii aad u la yaabay mid kale waxay ahayd waxaan ku soo daahanay liido gabdha ayaa lagala digay mooto runtii ana gaariyaan wati mootadii iga horeysay ama gabdha lagala digay kadibna baabuurkan waxaan ku imid meel mootooyinka lagu baaro gabdha derbiga fadhiyaan u imid mootada markaan baabuurka istaajiyay muraadaha deji la dhahay muraadaha dejiyay gabdhaha waxaan arkay markaas xoogaa naftigoodu aan isla su'aal weydiinayaa muraad deji Allah leerka dhaxan daartay su'aal dhah ma soconayaan ku yiri gabdhaas maxaa ku dhacay saacadaan ay socdaan Allah gabdhaha 6 saac ay socdaan marka xabsiga caaw galaya baabuur gadaal u qaaday baakina galiyay waa u imid nimanka waxaan ku yirinayo gabdhaha bal hal iska fasaxo caawa waa diideen nimanka waa saaxiibo aan nahay oo boolis ah waxaan ku yirinayo gabdhahan hal fasaxo waa igu adkeeyeen dagaalan galay markii lagu adkeeyay kadib dagaalan galay ninkii booliska dhowr dhalinyaro ahaayeen qori igu soo tagtaageen adiga nimankii waxaan ku yiri qori ma u tagtana waa ka shalayeen markaan waxa la ma bixisay fariisa xagga Allah أنا ما كشرنا حاجة فرسالة هذا دقيقة شن حبة كورة فينا يرسى حبة أنا أو تليد مكة وهذا أنا مجلس شيء إنه يهمد وضد مرايا رنتي وحق قوم صديقاري أو ترجديسي كدبوا صالح هذا حجرني ومحاق الضن هم كور إنه كان قبلها سيستان مركب قبلها ماشي يجينا هنا ما هني قبلها لما وضنا مركب دنبا صرتقال نقطة إنك أضجع ويراد قبلها نداية حال شيء لأن تليا وهاي نكان سيداي قبلي وسوق هذه عجيب هاي marka isgooska taleex muqdisho maraayo waxaan ka soo qaaday meel kale mar raba inaan sheegay jadboontigu ahaa laakiin taleex markaan maraayo ay gabdho waxay ugu dhahanay meelaan seexano oo ilaahay abuurtay ma jirto taa digantiina ku ceelasha biyina waa gabdhii mootada intii laga dejiyay laabiga ka soo qaaday gabaraan wacay aan qaraabo ay waxaan ku yirnay gabdhaha ceelasha biyo degan yihiin bal ha kula seexdaan caawa si naxariis ku jirtaan gurigii u geeyay gabadhii waxay tiraahayay way la seexdeen subaxdii aan si lama mobile iyo boorso yar wax ugu jireenay wala kacin gabadhii soo xitirniyo gabadhii xalaa ay keentay ma taqaan ma aqaan ku yiri telefoon iga xadayna tiri boorso mara bixina maqan hadda marka wixii markuu waan naxay marna waan naxay gabadhii shala adigu u tureysay oo aad garabka siineysay oo walaalnimo iyo Soomaalnimo ku soo waday oo gabar kale oo Soomaaliyeed iyadana ay garab siisay in haddana iyadii ay dhacaan guriga xal ay ku hodin inay dhacaan waxa ila wax cajiib ah marka waxay in noqotay inaan gabar dambe jadboonta lagu haysto aanan aamin waa arkaa hadda marka magaca qaar ka jadboonta lagu haysto break uma qabto marka waxaan ku yiraahdaa ma la haysta ha la sii haysto sababtoo waxa laga yaabaa inay kuwiyo kale yihiin marka because gabar saacada socota naftigeeda waxaan u fahmaynaa taanaag aan wanaagsaneyn wixii 5 saac 6 saac lagu gaaraa gabar socota waxaan isrinay ma wanaagsan aan isri naftigeygu gabdho wanaagsan oo xilliga socdana way jiraan laakiin kuwa xunaa badan saas daraadeed waxaan ku yiri marka anigu yeesan igraafeen
qaralaasi horaa u socdaan oo haddaa guri islaameed geysay kaa dalbato inaad guri geysid oo guri islaameed aad tiraado iska seexo oo aad caawiso gabar Soomaaliyeed oo mar cidla taala ayadina ay wax xado Soomaalida gabar dama Soomaaliyeed ma aaminaysid markaasaan waxaa marka aan xasuustay kamid tahay nabarka ugu ah qof aad caawisay oo dumar ah inay haddana cidii aad u geysay dhacdo cajiib leh marka sanadkaas wuxuu ahaa sanad runtii aad khayrkiisu u badan yahay sanad wuxuu ahaa barwaaqo badan aniga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala siiyay ehelkayna uu siiyay sanad Soomaali badan ay faa'iideen sanad wuxuu ahaa runtii aad loo xasuusto dhibaatooyinka qaraxyadii qarax ugu weynaa ee dhacay Oktoobar kadib 14 Oktoobar kadib qarax ugu weynaa magaalada ka dhacay wuxuu ahaa qaraxii sanadka dhamaadkiisa dhacay bishii hadda la soo dhaafay December dad badan ay ku dhinteen oo Soomaaliyeed ex control afguyo ka dhacay qarax wuxuu ahaa saameyn xoog leh aadna runtii ummad Soomaaliyeed badan ugu dhinteen Allah u naxariisto inta dhimatay waxyaabo marka adiga sanad kasta arkayso waa dhacdooyin qoran oo hore u qoraa laakiin maalin waliba adigu la kulmayso maalinba kasti Ilaahay qoraa la kulmay marka qabil qadari khayri wa sharri ma la ta'ala marka warjeenin Ilaahay khayrka inuu la kulansiiyo shartana in Ilaahay subhanahu wa ta'ala naga xijaabo sanadkaas waxaan kala ku xasuustaa wuxuu ahaa sanadka anigu aan ku soo biiray YouTube leyda Soomaaliyeed channelka ga daawanaysan ayaan la soo wareegay yaraan saaxiibana ka soo qaatay kadibna waxaan bilaabay muuqaal inaan soo dhigo sanadku wuxuu ahaa si geesinimo leh ta u soo fariisto anigu aan adinka la hadlo hortiina imaado muuqaalo aan soo duubo marka wuxuu ii ahaa sanad cajiib runtii ay naftiga saameyn ugu leh aadna aan maxay toole u isticmaalay arrimaha YouTube-ka saaxiib badan oo iga caawiyay runtii maxaa la yiraahdaa garab siinay ijraan oo aan leeyahay maasantiin kuwa daawada ee comment ka bixin muuqaaladeeda garab ay siin naftigooda iyagana waxaan leeyahay maasantiin kuwa muuqaalada share garay naftigooda garab ay siin iyaga waxaan leeyahay maasantiin kuwa subscribe channel-ka yiraahdo garab ay siin iyaga waxaan leeyahay maasantiin sababtoo YouTube-ka rabaan waxa ka yiraahdo YouTube-ka qofka soo gala ee wax soo duubaya ee waqtiga bixinaya ee energy ka bixinaya wuxuu raadinayaa faa'iido ah inuu YouTube ka sameeyo lacag adiga daawanaya waxba kaba dhimayso inaad saaxiibka ku caawiso inuu lacag sameeyo adoo ka xasdin adoo ka xasinimeynin adoo isaga ku taageeraya ku caawinaya isna uu kaga mahadcelinaya anigu marka ma ihi qof garan waayay qof kilik soo siiyay channel-kan ee daawaday ee waqti ku bixiyay inuu mahadceliyo maxay waan aaminsan qofka ee daawada inuu waqti aniga siiyay inuu daawada awgeedna aan lacag ku sameeyay marka waxaan leeyahay saaxiibada daawaday waa maasantiin muuqaalka hadda dhameysateen waxa fudud ay sameyn karto waxa waaye inaad sii share gareyso sanadka 2020 aan galnay maxaa jeceshay muuqaal ahaan u soo duubo maxaa jeceshay inaan halkan ka soo daayo maxaa jeceshay inaan soo gaarsiiyo maxaa jeceshay inaan YouTube-kan ku soo kordhiyo aragtiyada intaan nooshaha laga dhaxlo aragti laga dhaxlo taageero laga dhaxlo garab istaagid wuxuuna laga dhaxlo saaxiibada daawada intaan nooshiin waa dhibanaysaan aan in ka dhaxlo taageero buuxda in ka dhaxlo waxa uu taageeri kartaa inaan muuqaalkan iyo si shirkadayso oo ah faafis waxa uu taageeri kartaa inaan channel-kan tiraado saaxiib badan ninka adiga oo kala kiciya subscribe dhaha alla kala kacsho waxa uu taageeri kartaa waliba YouTube-leyda aad isku taageeran qaarkood oo mahadcelinaya saaxiibadan YouTube-leyda taageeray leecaato runtii uu kamid yahay saaxiibada taageeray jamuuni liiraha kamida najib aadan najib oo runtii faraxsidi iyo barbaarta saaxiibadaas kamida oo jamuuni iyo najib aan ka soo qaadanayo jaleecaato saddexdooda si fiican ay garab istaageen saaxiibada kale ee dhiban iyaga waxa la adigu inay garab istaaga oo bahalkan waxa weeye ii kala kiciya inta dhiman ee aan ka tagay iyaguna garab si waxa la adigu inay maasantiin qof waliba oo runtii si muuqda ii taageera iyo si aan muuqanba ma hilmaamayo maalin uu ugu soo bixi doona hadii la idmo meesha uu mudan yahay sidoo ii caawiyay ayaana ugu abaalgudi doona qofka ibn aadanka meesha dhigta ma hilmaamo hadda intaad dhigto meel wanaagsan oo wax wanaagsan ka faa'iido adoo dib ku xasuusanaya hadda meel xun dhigto oo wuxuu ka faa'iidana adoo dib ku xasuusanaya labada xasuus markay kala fiican qofkii aad wanaaga intaad garab siisay ku guuleystay si wanaagsan adiga xataa runtii khayr kugu jiro ku xasuusanaya kan xumaantana si xumaan ah oo adigu uusan khayr kugu jirin oo ku xasuusanaya marka qofku wanaag ugu taageero waa aqaana kan xumaanta ugu taageerna waa aqaana dadku ay kala socan yihiin ima wada sinna kan aytama iyo midka aytimin ima wada sinna kan amaana iyo midka amaanin ima wada sinna marka mar waliba dadku ma ku sinaanayaan marka 2020 waxaan rajeynayaa 2020 ee aan ku jirna hadda
inuu noqdo sanad annagoo dhan noo barwaaqa ah annagoo dhan noo khayra qof waliba oo janaalkan soo galna waxaan ka codsanayaa in sanadkan uu igu garab siiyo inuu ii noqdo sanad dadka ku jira ay gaaraan 100,000 oo runtii meel fiican aan gaarsiiyo 100,000 oo subscribe janaalka inaan sanadkan helo hadda waxaan marayaa 15 maraa hadda marka sanadkan 20 waxaan rajaynayaa inuu 100,000 tago adinka igu caawi kartiin ii share gareey aad u mahadsantahay saaxiib muuqaalka hadda dhameystay ku mahadcelinayaa waxyaabihii aan kaaga baahday oo aan ka codsanayay ee share gareynta ee laagta ee commentiga ah maadaama muuqaalka dhameystay ii sameey oo adigu ii bilow intaas ku soo gabagabeynaa muuqaalka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. nabadgelyo.